Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan isku dayi doonaa maanta inaynu wax ka nidhaahno example ku saabsan chain rule-ka. Example-ku wuxuuna leeyahay waa maxay derivative-ka function-kani. Function-ku waxa weeyaan y equals qaws 3x plus 1 qawskoo xidhan lagu jibaaray 8. halkan waxaan ku haysanaa laba function. qawska dhexdiisa waxa ku jira function, qawska banaankiisana waxa yaala function. waa laba function. qawska gudihiisa waxa ku jira function 3x plus 1 waa function, 8 ku jibaarana waa function. qawska gudihiisa function ku jira waxa la dhahaa inside function, kan banaanka yaala 8 kana waxa la dhahaa outside function. derivative ku wuxuuna leeyahay ka saar derivative-ka function-ka banaanka yaala adigoo ka tegaya function-ka gudaha ku jira. kadibna waxaad ku dhufataa derivative-ka ku jira function-ka ku jira gudaha ku jira. aynu markaa ka shaqeyno tusaalahan. dy over dx equals function-ka banaanka yaala waa 8. waxaan ka shaqeynayaa power rule-ki function-ka oo ahaa rule-ka ugu horeeya ee derivative-ka. xagga hore aan ku dhufanaya, function-kana waan soo qaadanaya. isla power-ka waxaan ka jarayaa hal baan ka jarayaa. imika waxaan dhamaystay qaybtii koowaad ee formulada. formuladu waxay lahayd marka hore waxaad ka saartaa derivative-ka power-ka banaanka adigoo iskaga tegaya function-ka gudaha ku jira. function-kii gudaha ku jiray maantaadan waxaan ku bilaabay derivative-kayga oo markii baan ka saaray function-kii banaanka yaalay oo ahaa 8. 8 maxaan ka saaray hal baan ka jaray. isla 8 ka tarkiisii baan maxay xagga hore ku dhuftay. maxayna leedahay qaybta labaad ee qaacidadu kadibna waxaad ku dhufataa derivative-ka qaybtii gudaha. haddaan ka shaqeynaynaa derivative-ka qaybta gudaha. haddaynu ka shaqeyno derivative-ka qaybta gudaha waxayna leedahay 3x plus 1. 3x wuxuu noqonayaa derivative-keedu 3 keliyata plus 1 number walba oo aan xaraf la socon. xaraf maxaan ka wadaa x ama y oo number keligii derivative-kiisu waa 0. number walba oo aan la socon xaraf derivative-kiisu waa 0. marka 1 maadaama aan la socon xaraf oo keligii yahay wuxuu noqonayaa derivative-kiisu 0. waxay noqonaysaa markaa qaacidada ugu dambeysa, jawaabteeda ugu dambeysa cafwan 8 kan iska soo qaado 3x plus 1 kana iska soo qaado 8 laga jaray 1 waa 7 lagu dhuftay 3 loo geeyay 0 oo ah 3. jawaabteeda ugu dambeysa waa taa. maxaan sameeyey mar labaad aan ku celiyo function-kii gudaha ku jiray ayaan iska soo qaatay. function-kii banaanka yaalay oo 8 ka ahaana hal baan ka jaray. isla isagii baan markaasi xagga hore ku dhuftay. kadib baan function-kii aan ka tegay gudaha ku jiray inside-ka ahaa aan isaga mar labaad ka saaray. waad mahadsantihiin.